بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan saaxiibayaal meel walbo aad joogtaan iyo si walbo ay sarag maqalkeenu idin soo gaarayo halkani waa Israac TV. kusoo dhawaada warkeena maalinimo qodobo muhiim ah ayaad warkeena maanta ku daawan doontaan waxaana qodobadaasi kamid ah maxaa ka cusub xaaladii ugu dambeeyay xiisadaha ka taagan dalka Itoobiya warbixinayeen kaga haynaa sidoo kale Itoobiya oo duulaan ku ah Soomaaliya iyo dowladda federaaliga ee Soomaaliya oo fariin loo diray iyaduna warka ayaad ku daawan doontaan Jubbaland oo war ka soo saartay qasaaraha qaraxii magaalada Kismaayo wasiirka maaliyadda Bayle oo ka qayb galay shirkadda deyn cafinta Soomaaliya ilaalada madaxweyne Danina waxay qof shacab ku dileen magaalada Garowe ra'iisul wasaaraha Israa'iilna waxa uu dignin u diray dalka Iran qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsanba u diyaar garooba saaxiibayaal وهاجاك صاحبيال isku soo noqod wanaagsan aynu ku bilaawno xiisadaha dalka Itoobiya gaar ahaan marka kuwa kala dhaxaya dalka Suudaan ayaa maalmahan Itoobiya ku eedeynayay in ay weeraro ku soo qaadeen iyaga oo marka dhanka xuduudda ka soo gudbay waxaana maalmahan laga cabsi qabaa in uu dagaal ka dhex qarxo labada dal oo ay isku hayaan xiisadaha biyaha iyo sidoo kale xiisada dhulka xuduudda ee marka Suudaan ay qabsatay dalka Suudaan hadii sawir yar aynu ka bixino waxa ku hardamaya saddex kooxood oo kala ah kooxda koobaad ayaa ah golaha militariga ee uu hogaaminayo Abdul Fattah al-Burhan oo loo badinayo inuu markaa dhanka xulafada masaarida la safan yahay sidoo kale kooxda labaad ayaa ah golaha shacabka ee ra'iisul wasaaraha uu markaa hogaaminayo waa Abdullah Hamduge oo markaa iyaguna hogaamiye ama markaa ayaa hogaamiye markaa kolba cid la joogta la aragti ah waa Abdullah Hamduge hogaamiye markaa isagu kolba cid markaa la joogta ku aragti ah waana hogaamiye la safta ama la saftay marna Mareykanka iyo Masar marna dhanka dalka Itoobiya inta badan golihiisu awood saas ma lahan maalmahan waxa ay ku kala qaybsan yihiin dhiibista Umar Hassan al-Bashir oo maxkamadda dambiyada dagaalka ee adduunka oo ay markaa doonayso oo Mareykanku ku dabada markaa ama dabada uu ka riixayo si loo soo taago maxkamadaasi kooxda saddexaad ayaa ah ciidamada gaarka ee uu hogaaminayo General Mohammed Hamdan Dagalo ciidamadan ayaa inta badan lagu eedeeyaa xasuuqyadii Darfur iyo sidoo kale kuwii 2019 dadka badan ay ku dhinteen ciidamadan ayaa ah kuwa ay markaa gacanta ku hayaan ehelada Hamdan Dagalo waxaana intaasi markaa u dheer inay dhaqaalaha dalka saameyn badan ay ku leeyihiin golaha militariga iyo golaha shacabka ay mar badan markaa ku eedeeyaan xasuuqyo iyo gabood fallo waxaana uu Hamdan sheegay in si gaar ah loo beegsanayo saddexda kooxood ee dagaalka ama dalka markaa awoodiisa ku hardamaya gaar ahaan kooxda Hamdan Dagalo iyo sidoo kale kooxda Abdul Fattah al-Burhan ayaa loo badinayaa in mid kamida ay ku lug lahayd afgambigii maalmahan dalkaasi ka dhacay dhinaca dalka Itoobiya oo markaa horay dib u dhiska dalka Suudaan qayb ka qaatay ayaa la rumaysan yahay inay markaa siyaabo kala duwan xadkaha markaa ay ugu daadsan yihiin dalkaasi oo ay ku lug leeyihiin xiisadaha dalkaasi ka aloosan waxaana la rumaysan yahay in dalalka Masar iyo sidoo kale Itoobiya ay ku hardamayaan gudaha dalka Suudaan saaxiibayaal wixii ka soo kordha xiisada dalka Suudaan iyo dalka markaa Itoobiya ka dhex taagan wararkayaga dambe aad saaxiibayaal ku daawan doontaan intaynan wararka Itoobiya ka bixin dalka Itoobiya waxay wadaa qorshe dhabarjab ku noqonaya gudaha dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya si fariin ayaa loo diray qorshahaasi muxuu yahay biyo xireen ay ka samaysatay Itoobiya webiga Nile ayaa muddo badan waxa ka taagan khilaaf kaasi oo saameyn ku yeelan doona mustaqbalka Soomaaliya sida uu sheegay aqoonyahan Professor Hassan Macalin Professor Hassan oo PhD ka haysta xiriirka caalamiga ayaa sheegay in arintan muranka biyaha ee Masar iyo Itoobiya aysan ku koobnaan doonin labada dal maadaama uu ku doodayo in Itoobiya ay ku soo jeesan doonto Jubba iyo Shabeelle kadib marka ay ka soo dhamaato webiga Nile muranka Itoobiya iyo Masar waxa uu saameyn ugu yeelan doonaa waqti fog waayo hadda Itoobiya biyaha ay muranka markaa gelisay waa Nile oo galbeeda marka dhanka bariga ay u soo jeesato oo Jubba iyo Shabeelle ay soo aado ayay saameyn imaan doontaa ayuu yiri Professor Hassan Macalin sidoo kale waxa uu soo jeediyay in Soomaaliya ay hadda taageero u muujiso Masar oo ay markaa si weyn biyaha xireenka Nile ay isugu hayaan Itoobiya oo iyadu saaxiib dhow la ah madaxda sare ee dalka hadii ay Masar heshiis uga baxdo Soomaaliyana
waa ay uga bixi doontaa. sidaas daraadeed Soomaaliya waa inay taageerto Masar, waayo waa isku dan haddii Ethiopia ay ku guuldareysato kiiska Masar, Soomaaliya berri waa ay ku doodi kartaa. ugu dambeyntiina waxa uu carabka ku adkeeyay in Soomaaliya iyo Masar ay isku dan yihiin saameyn xoogan ay markaa bulshadooda ku yeelan doonto qorshaha Ethiopia ay markaa ay kaliya markaa ka faa'iideysiga ay doonayso in webigaas iyada kaliya ka faa'iideysato. muranka biyo xireenka Nile-ka ayaa muddo badan ka dhex taagnaa dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia, iyadoo ay muddooyinkii dambe ay si weyn uga dhex taafantay Masar iyo dalka Ethiopia, mana jiro ilaa iyo hadda heshiis rasmi ah oo laga gaaray arrimahaasi. wagaag saaxiibayaal inuu dib ugu soo noqono wararka dalka gudaha Soomaaliya, Jubbaland ayaa waxa ay war ka soo saartay qasaaraha markaa ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay qasaaraha rasmiga ee ka dhashay qarax xalay ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo, kaas oo ay geystay qasaare dhimasho iyo markaa dhaawac. afhayeenka wasaaradda Jaamac Axmed Cali Joofane oo la hadlayay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof, 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Jaamac Joofane ayaa sidoo kale xusay in 7 qof ee markaa dhaawacantay 3 kamid ay yihiin askar ka tirsan ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay weli wadaan baaritaano dheeraad ah oo ku aadan qaraxaasi oo lala beegsaday goob maqaaxi ahayd. qaraxa waxa uu ka dhacay goob maqaaxi ah, inta aan ognahay waxa ku dhintay 2 ruux oo markaa mid kamid ah uu ahaa caruur, waxaana ku dhaawacmay 7 qof oo 3 kamid ay yihiin askar. laamaha ammaanka ah waxa ay ka wadaan markaa ama haatan wadaan baaris, ayuu yiri afhayeenku. xaaladda magaalada ayaa saaka degan, waxaana haatan dadka dhaawacyada ah lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaaladaasi si loola tacaalo xaaladooda caafimaad. Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland waxaa muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacayay falal liddi ku ah amniga, kuwaasoo isugu jira weeraro, qaraxyo iyo dilal qorsheysan. wagaag saaxiibayaal aynu aadno dhanka iyo wasaaradda maaliyadda dalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxaa lagu soo warramay inuu ka qayb galay shir markaa lagu sheegay inuu ahaa shirka deyn cafinta Soomaaliya. shir dhinaca qadka internetka ee aaladda Zoom-ka ka dhacay una dhaxeeyay mas'uuliyiin ka tirsan Bangiga Adduunka iyo sidoo kale hay'adda IMF iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle xaafay afurmay. shirka ayaa waxaa looga hadlayaa dib u eegis lagu sameynayo wixii ka qabsoomay barnaamijka ECF ee hanaanka deyn cafinta Soomaaliya. shirka ayaa muddada toddobaadka ah ee uu socdo sidoo kale diiradda lagu saaraya saameynta COVID-19 ee dhaqaalaha Soomaaliya iyo qaabkii wax looga qaban lahaa. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in ay si wada jira dib ugu eegayaan dhamaystirka shuruudihii ugu dambeeyay ee hanaanka deyn cafinta. tani waa fursad weyn oo inoo ogolaanaysa in aan adduunka kala daadno fursadaha horumarineed ee Soomaaliya, ayuu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Soomaaliya ayaa 4 sano la soo dhaafay waxa ay dadaal ugu jirtay sidii looga cafin lahaa deymaha ay ku leeyihiin qaar kamid ah dalalka caalamka, iyada oo markaa dowladaha qaarkood ay cafiyeen kuwana ay dhowaan cafin doonaan. wagaag saaxiibayaal, Puntland haddii aynu u kicitino ilaalada madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu soo warramay in qof shacab uu ku dilay magaalada Garowe. ciidamada ilaalada madaxweyne Puntland ayaa magaalada Garowe waxa ay ku dileen haweeney shacab ah. dilka ayaa yimid kadib markii gaari ay wateen dad shacab ah uu dhexgalay kolonyo galbinaysa madaxweynaha Puntland xilli uu dib ugu soo laabanayay magaalada Garowe. ma jiro weli wax wara oo markaa ka soo baxay taliska booliiska ee maamulka Puntland ee ku aadan dhacdadaasi ka dhacday halkaasi. wagaag ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa waxa uu digniin u diray dalka Iran. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa u sheegay golaha guud ee qaramada midoobay in barnaamijka nukliyeerka Iran uu markaa ka tallaabay dhammaan qadadka cas ee dalkaasi. waxa uu ku eedeeyay in Iran ay markaa doonayso inay ka taliso bariga dhexe iyadoo ka abuureysa dallad nukliyeera markaa gobolka, waxaana uu ku adkaystay in Israa'iil aysan u ogolaan doonin Iran inay hesho hubka nukliyeerka. waxaa kale uu markaa ka dhawaajiyay suurtagalnimada in Israa'iil keligeed wajihi doonto Iran, arintaas oo uu markaa dalkiisa marar badan
ku hanjabay. Bennett ayaa yiri barnaamijka nukliyeerka Iran waxa uu gaaray heer markaa biyo galeen ah, iyadoo sidoo kale markaa dulqaadkeena ayaa isna gaaray heerkii ugu dambeeyay. Tehran ayaa kor u qaaday barnaamijkeeda kobcinta nukliyeerka kadib markii Mareykanka uu ka baxay heshiiskii 2015 xadidayay howlaha nukliyeerka dalka Iran. saaxiibayaal, wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka intiisa kaleba waa naga intaa. tan iyo warkeena kan xiga fi amaan illah.